cabdiraxmaan abubakar good oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay sababta xisbiga mucaaradka uu cid ula noqday xubintii cusbayd ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland. ninkii uu cid halka golaha isagoo jooga waa u yimaadeen waa ka haysan iyaguna marka waxaad moodaa dalkii meel ku soo garameen xeerar bayna kala gii sharci bayna kala gii jiray sharcigiina saasa loogu tumanayaa waad arkaysaan maalinba mid baa lagu tumanayaa dee wax xaq loo socdo garan mayno dalka u socdo xisbigu dee ninba xisbi baa matalaya anigu wuxuu kala bixi karaa hadduu arkay sharcigii oo lagu tumanayo cadaaladda inta lagu soo celinayo kala baxo iyo in sacsi yiraahdo labada xaq u leeyahay horta sharciga ma aha wax weyn golaha guddi baa jirta oo tiro lahayd tiradii baa aqlabiyadu u badatay ma macquul maaha oo ma buuxin xeerka komishanka doorashooyinka xeerka u yaala ee iskriin gareynaya ma buuxin baa aqlabiyadu u badatay dhanka kale xildhibaan cabdiraxmaan abubakar good waxa uu dhaliilo u soo jeediyay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Baasha Maxamed Faarax isagoo ku sababeeyay in gudoomiye Baasha uu ka saaray xubintii dhexdhexaadinta guddida doorashooyinka xildhibaan Dhakool waxaana ka mid ah hadaladiisii cidda saartay gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa ka saaray anigu intaan ogahay meeshii dooni baa waxa isaga u talaa wixii laga soo dhanay laakiin ka qoraalka qoray kii dooni baa ka dambeeyo laakiin anigu ka qoraalka qoray waa gudoomiyaha wakiilada sharci uma aha markuu yiraahdo war sidaan sharciga ma buuxin sharciga ma buuxiyo oo iskriinkan marinayna xeerkan ku dabaqno guddida in laga saaro qoraal lagu dhajiyo gidaarka oo isla immediately marka laga saaro wax sharciya iyo wax meel dastuuri wax sharci oo dhigay ma jiro wana xaq darro wana sharci darro wax alle wax awood u leh nin xildhibaan oo leh raygan xeerkani waxan ma buuxin leh nin awood u leh oo sharci ahaan ka saari kara ma jiraba waa sharci darrkii ka saara